Zaynab oo walwal murugo weyn soo food saareen markii ay heshay warka in aabaheedii ninkeedii midkood oo dagaalka ku dhiman oo ay nool yihiin aad ay u farxday waxayna qalqaalo u gashay in ay hesho madax furashada ninkeeda laga doonayo waxa ay heshay oo dirtay xoolo kale maadaama aysan haysan waqtigaas silis qaali ah ama katiinad qaali oo aad u qurux badneed taasoo hadiyad ahaan ay uga heshay hooyadeeda Khadiija bint Quwaylid oo waqtigaas sanado ka hor sii mootaneed katiinadii baa Badar la geeyay si Abu Caas loogu furto kadib rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa katiinadii arkay oo gartay inay tahay tii marwadiisii Khadiija oo aad u jeclaa ee inantiisa ay ka dhaxashay xasuus adag baa ku soo dhacday rasuulka muslimiintii buu arintii uga waramay wuxuuna weydiistay inay u ogolaan karaan in katiinadaas xasuustiisa qiimaha u leh inay u badbaadiyaan ninkan uu sadaqa u yahay inay iska sii daayaan si naxariis leh ayay iyaguna uga yeeleen fikradii rasuulka kadib rasuulka calayhi salaatu wasalaam Abu Caas buu la gorgortamay in la sii daayo katiinkana loo celiyo isaguna goortii uu Maka gaaro in gabadhiisa Zaynab uu soo diro ayaa la isla gartay waayo markan hijrada waa lagu kala meermay kadib labada qoloba diin ahaan ismay geeyaan ayaa soo baxday oo diinteena waxa ay qortay in qofka muslim qofka gaalka geenin Abu Caas sida aynu xusnay wuxuu ahaa nin leh qofnimo gobeed iyo hadal adeeg sidaas daraadeed wuxuu ku qasbanaaday inuu ballantii rasuulku ka soo qaado uu oofiyo wuxuuna Zaynab u sheegay markuu dib u soo noqday magaaladiisii in reerkoodii aabaheed Madiina ay ugu tagtay isagana kala fogaadaan sidii bayna noqotay xaalka jacayl aan meermin oo duugoomin buu ahaa kan ka dhaxeeyay Zaynab iyo Abu Caas Zaynab waa ay diiday raggii badnaa ee reer Madiina inay mid qura ay guur ka yeesho kulligood raggii soo damaaciyay way ku gacan saartay isagu laftirkiisa Abu Caas naag dambe ma uusan dabcin rabitaankiisii oo dhan wuxuu u hibeeyay Zaynab 6 sanadood oo xiriir ayaa sidaas loo kala maqnaa oo aanan xitaa suuragal aysan ahayn mar qura inay arkaan isaguna inuu muslimo u diiday iyadana waaba muslimad aabaheed garab joogta sabab ay u gaalowda ma jirto 6 sanadood kadib Abu Caas waxa uu soo waday safar Shaam ka yimid oo Maka ku socday oo ahaa 100 awr wararan oo hogaaminaya asaga ciidan wareemata oo muslimiin ah baa kadib safarkii wadada ka helay waxayna ku galgasheen raggii gaalada ah ee safarka waday waxay dilaan mooyaan wixii kale way ceersadeen Abu Caas farxadkii raggii la ceersanaya ayuu qayb ka ahaa dhankii Maka ma aadine Madiino oo u dhaweed ayuu afka saaray qoladii soo jabisay ee ceersanaysay muslimiinta ahayd waa ay daba joogeen isagii oo Abu Caas ah habeen madow buu Abu Caas magaaladii soo galay waxa uu hoos u wareystay guriga Zaynab ay deganeed ilaa waa nin ku ogaa naxariis iyo jacayl in ubadkiisa ay heysay markii loo sheegay waa uu soo galay gurigeedii wili waa carmal ama garoob caruurtiisiina way haysaa farxad iyo jacayl baa la isku bururay miyaa soo muslimtay ayay weydiisay iyadoo ilmeynaysa maya ee baxsad dhuumasho ah ayaan ahay buu u sheegay isma qabaan oo xad bay kala leeyihiin